وحكومة مدحوينها عصب كونفور galbeed Soomaaliya mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji waxa liiwaanka baarlamaanka federaalka ku mataliyay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo inta u dhaxaysay sanadihii 2016 ilaa 2022 haddana mar kale ayaa loo doortay inuu xildhibaan noqdo inta u dhaxaysay 2022 ilaa 2026 madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ayaa ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee xisbiga cadaaladda iyo wadajirka ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waana sababta ugu weyn ee lagu doortay inuu hogaamiyo maamulka koonfur galbeed marxaladan xasaasiga ah 2022 ayaa loo magacaabay xilka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sidoo kale 2025 ayaa loo magacaabay wasaaradda gaashaandhigga waxa uuna xilkaas hayay muddo 2 bilood ah waxa uuna sidaas ku noqday wasiirkii ugu muddada gaabnaa ee soo mara wasaaraddaas isla 2025 ayaa loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cali Bare xilalkii hore u soo qabtay waxaa ka mid ah xogayaha guddiga warfaafinta wacyigelinta dhaqanka boostada iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa uu hore u noqday agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Qoyan Jibriil waxa uu shahaadada koowaad ee jaamacadda kaga baxay cilmiga dhaqaalaha halka heerka labaad uu ka diyaariyay jaamacadda BIS farceeda Soomaaliya haddaba daawade madaxweyne Jibriil ma yahay qofka ugu munaasabsan ee loo dhiibi lahaa hogaanka koonfur galbeed marxaladan kala guurka ah